gaas iyo taraq ayuu soo qaatay goobtan ayuuna u yimaaday inuu gubo Asmo ugu dambeynna waa uu ku guuleystay oo dabkii ayuu ku dhajiyay qolka ICU-ga ayaa loola cararay gabadha quruxda badan ee idinkaga muuqata halkan kadib markii wiilkii jacaylku kala dhaxeeyay oo gubay isla markaana ay holocday jirkeedii qayb ka mid ah oo dhan ayaa gubatay 80% ayayna jirkeedii oo gubtay hadeertaana isbitaalka dhakhtarka ayaa aad uga dayrinaya gabadha halkan idinkaga muuqata magaceedu waa Salmo waxayna caan ka tahay xaafadaha ku yaala magaalada Hargeysa wiil ayaa jacayl kala dhaxeeyay lagu magacaabo Maxamed kadibna wiilkan ayay block ka saartay meel kasta khilaaf yar oo soo dhaxmaray qoraalkii ugu dambeeyay oo u soo qoro waxa uu ahaay Salmo aniga miyaad iga tagaysaa haddii aad iga tagto ogsoonow in aadan nin kale calfanaynin isla markaana aan nolosha iyo sidoo kale nafta ku dhaafi doono balse Asmo waxba kama aysan soo qaadan hadalladii fariinta ahayd oo halkan muuqaalka ugu soo gudbiyay isla markaana uu ku sheegay inuu nafteeda galaafa doono idii aysan blockta ka qaadin halkan oo ahayd goob sayluun ah isla markaana ayada iyo saaxiibteed ay iska diyaarinayeen oo aroos u socda ayuu ugu soo galay asagoo oo wata caag shidaal ah iyo sidoo kale taraq waxa albaabka ka soo furay Asma saaxiibteed isla markaana gudaha ayuu soo galay Asma oo halkan taagan Salma oo halkan taagan ayuu weydiiyay aniga miyaad block isaartay balse waxa ay tiri war maxaad ka hadlaysaa isla markii ayuu ku soo booday waxaana goobtaasi ka dhacay fal argagax leh tani waa saaxiibteed oo iska ilmeynaysa isla markaana sheegaysa wixii goobta ka dhacay iyo sidoo kale qaabkii ay u argagaxeen markii ay arkeen Maxamed oo sita taraq iyo sidoo kale shidaal oo ka soo shubtay kaalin shidaal isla markaana uu caag ku soo qaatay halkan ayuu yimid qorshihiisuna waxa uu ahay gabadhii jacaylku kala dhaxeeyay ee blockta saartay inuu nafteeda galaafto isla markaana uu adduunka dhaafiyo halkan waxa sidan ugu holcaya waa goobtii ay ku sugneed Salmo isla markaana Salmo qurux maalinna kuma aysan fakareynin Maxamed ayaa ku imaan doona si kasta oo aad block u saarto waana uu ku gubi doona oo naftaada ayuu galaafa doona balse Maxamedkii ay maalin isbarteen jacaylku oo soo dhaxmaray ugu dambeyn waxa uu noqday mid nolosheeda iyo sidoo kale wajigeeda sidan u quruxda badan u bedelay mid gubtay isla markaana isbitaalka loola cararay labadooduba qolka ICU-ga ee magaalada weyn ee Hargeysa ayay dhex yaalaan isbitaalka weyn ee Hargeysa Salmo waxa ay u gubatay qaab la yaab leh 80% jirkeedu waa uu gubtay asaga oo ku soo booday isla markaana dabka shiday dabkuna asaga ma uusan cafin oo uu qabsaday waxa uuna sidoo kale ka gubay qaybtan caloosha asaga laftigiisu waxa uu yaalaa isbitaalka waa nolosheeda markii ugu dambeysay Salmo oo halkan la taagan saaxiibteed sayluun kale ay ka soo baxeen waxa uuna qorshahoodu ahay inay aadaan isbitaal inay aadaan aroos balse arooskii waxa uu isku bedelay in isbitaalka loola soo cararo Salmo halkaasina dhaqaatiirtu ay ku sheegaan inay badbaado in wax yar ay ka dhiman tahay nolosheeda isla markaana inay badbaado ay adag tahay halkan waa qolkii ICU-ga waa qolka uu ku gubay halkan ayuu ku gubanayaa muuqaaladan ayaa laga duubay kadib markii isbitaalka loola cararay Salmo haddaba wiilkan jacayl ayaa kala dhaxeeyay Salmo waxa ayna isbarteen maalin maalmaha kamid ah jacaylkoodu waxa uu soo qoto dheeraado khilaaf yar ayaa yimid kadibna Salmo waxa ay block nab ku siiday oo waliba meel kasta ay ka blocktay Maxamed balse Maxamed go'aan ayuu soo qaatay waxa uuna go'aan ku gaaray inuu gubo nolosheeda isla markaana uu isdhaafiyo maanta heer waxa gaarsiisay anoo in adeerka ee uban adigna walaashii macna ta in ay igu نلقى بلوغي صرت لكن دمنا عافية أنا درتي أتا دنا كلا مستقبلا كلا لكن ما تساني نيجو يسيس دمانتون السلام يا نحدين درتي ما هذا كرايو هذا وحيسو قاعد صور هذا السلمير يسيده وكبتي يسيده وكوكوضي نالي دهوي نالي دهروجعون نلش كيدي مستقبل كيدي بكو عياري إنكاسي أنا ننتي سقطونا مقرني لوضع مني أقونا ملي ولي بلي طليقة هاي لكن هذا نصدر أنه حي ملينيو إن نعاوز ساحن دونه قلبي حنونيا qof hadii uu idinka tago waa inaad ogolaataan oo aqbashaan dadka nolosha ku adkeynina adduunka waxa ku nool dad hadii aad kala hadhaan ogolaanayna noolaato inaad qosasho inaad faraxdo
silmayar ilaahay caafimaad sareecana ha siiyo ilaahay how booga dhayo ilaahay aduu nolol lagu talagalay sidoo kale faamiliga iyo reerka ay kasoo jeeda salmi ilaahay qalbiga ha u adkeeyo deenuba waynu gubanaynaa oo noloshaan adduunyo waynu ka wada tegaynaa mid ka mida qisooyinkii abid iigu naxdinta badnaa ayaan maanta aan maqlay qisada Salma iyo wiilka mataqaanaaye Salma gubay isagana naftiisa gubay runtii waa qiso aad iyo aad u xanuun badan anaana qisada oo dhammaystiran idin sheegaya inantan Salma ayaa la yiraahdaa qisadu waxa ay ka dhacday magaalada Hargeysa habeenkii xalay toola ahayd ayaanay qisadu dhacday ilaa iyo hadda laamaha amnigu qisada oo dhammaystiran may sheegin gabadha xaaladeeda kama waramin baaritaan ayaa socda laakiin dad mataqaanaaye qisada si fiican ula socday oo goob joogayaal ahaa oo ii waramay ayaan idin sheegaya waxay iiga warameen qisadaas inanta Salma ninkan mataqaanaaye gubaya xidhiidh baa kala dhaxeeyay wiilku inanta Salma aad iyo aad buu u jeclaa iyaduna way jecleed xidhiidhkoodu wax uu socdaba labadooda khilaaf ayaa soo kala dhex galay khilaafkii ayaa dheeraaday Salmi waxay go'aansatay qofkan xidhiidhkiisa inay halkaa ku goyso wiilkina si fiican bay ula hadashay baa la dhaho waxay ku tiri walaalo laba qof oo kastoo isjeclaada hadday isfahmi waayaan wadadaas ay kala maraan waa taa burca walaal ina kala kaxee bay ku tiri wiilkii gabadhii kamuu aqbalin xidhiidhka in halkaa lagu joojiyo laakiin Salmi iyadu waxa ay go'aansatay ninkaas inay faraha ka qaado oo ay nolol cusub samaysato wiilkii meel kasta ayay ka baloogtay wiilkii meel uu kala soo hadla ayuu waay waa sida qisada ilaa iyo hadda lagu soo warinay Allahu a'lam haddii ay wax kala jiraan laakiin qisada sida loo badinayo loo waramayaa sidaas wiilkii meel uu gabadhii kala hadla ayuu waay noloshii dhan baa xiriir ku noqotay noloshii dhan baa mugdi ku noqotay mararka qaar subxaanallah waa laga ducaystaa qof sidaas oo kala maata interest kugu ah ilaa heerkaana kale ku gaarsiin kara wiilkii markii uu gabadhii waayay meel uu kala hadlo asna mataqaanaa qalbigii u dagi waayay gaarigiisu soo kaxaystay habeenkii xalay toola ahayd baa la yiri wuxuu soo qaatay caagad dheer oo baatroola asaguna waa isku soo shubay baatroolka diyaar buu isagu ahaa koofeer ay Salmi ka shaqeynaysay ayuu ugu soo galay koofeerka hal gabadh oo kala joogtay iyo inanta Salma joogtay gabadhii markay ninkan aragtay iyadu wayba carartay ninkan dabka la soo cararaya inantii Salmina waa shoogtay baasiinka buu inantii ku shubay dabna waa qabatay asna waa isku qabtay dabkii meeshii bay inantii de ku milantay oo jirkeedii ku go'ay meel jirkeeda caafimaad qabtaa ma jira lagu leeyahay dabkeedu wuxuu marayaa stage-ka 85 boqolkiiba 85 jirkeedu waa gubtay boqolkiiba 85 jirkeedii waa go'ay oo dab baabiyay inanta saa u quruxda badan ninkii asagana waa gubtay isaga stage 4 boqolkiiba 4 boqolkiiba 5 ayuu gubtay baa la yiri anigu hadiiba ay ciidanku baaritaan sameeyaan waxaaba laga yaabaa ninkan inuu rabay gabadho kaliya